السلام عليكم أبو كرم هذه كسر سو لايف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن سلام السلام يا ما صنتهاي دمان وحن سلام يا وكل شعب كسومالي بل والدنيا كجوجان وسلام يا. ما شاء الله. أبو كردت هذا يكوي غنان وحتى هاي شخصي ورباهنتا كسر شقي وقت ودر كسر شقي هدي أنا لهيت لنك سمين الرواية ده تي في برنامج ده وحوالبا لكن أيامهن قدام بي وحن أرقني أريما وناكسن أو أديك يدد أفر بدنا كقب قاتين أو قبضة فنانة ده إسلام كانوا كجرتي أو تقاط يروي دي كلا سميسي آمين الدول أو إلهي عافية كحنون سن مجال لندن أو استكتين أرنتاس أدو سوكو بيستيقو بلودين. ما صنتها ولكن سولو آمين الدول وفنانة قالية آمين الدول ويصور عليه هبين هذا كميدا waxa laga joogaa muddo bil ku dhawaada waxay ii sheegtay xaaladeeda iyadoo codkeedana aad daciif u yahay waxay tiri waxaan kaaga baahanahay inaad caawiso TV-gana inuu caawiyo oo codkiina aad ummadda bulshada Soomaaliyeed aad gaarsiisaan abuukar oo fanaaniintana aad gaarsiiso fariinteeda aad u sheegto maadaama aad riwaayadihii iyo howlihii fanka aad adigna wax saaran tahay markiiba waan kacay habar feenuusan kala tashtay Faarax Murtiile asbaran dadkii ma taqaana hawsha xoog ila waday riwaayada ee gudiga ahaan kala tashta waan u sheegay kulligood ay wada kaceen TV-ga waan gaarsiiyay TV-ga uu kacay wuxuu yiri fanaanad weeyaan waan ma taqaana dhinacana waan ka qayb qaadanaynaa waan gaarsiinaynaa newskii barnaamijkii dhinac kasta waxay yiraahdeen waa ka Abu Karo sabab ma taqaana hawsha ku bilaabatay Abu Kar su'aasheeda labaad waxay tahay adiga shakhsiyan Abu Kar ahaan wax lacag ah oo lagu soo diray wax lacag ah waxay ahaataba adiga aad u aruurisay ama akaankaaga ay ku soo dhacday oo aamino dhool loogu talagalay iska lahayd ma jirtaa absolute solo annaga aamino dhool gargaarkeeda shaashadan ku qornay account numberkeeda iyo magaceeda iyo telefoonkeeda absolute qof akoonkiisa kala lacag ku soo diray male ama aniga ha noqoto ama shaqaalaha universal ha noqdaan ama fanaaniinta ha noqdaan account qof kale leeyahay oo halka aan ku qornay ma jiro iyada akoonkeeda meesha lagu qoray iyadaan lacagta lagu soo dirayo waxa kaliya oo jirtay in aniga iyo Feenus iyo Asbar iyo Faarax Murtiile kulay Feenus arintaana ka hadli doonto mataqaan faafahin doonta wixii gacanta lagu soo qaaday iyada guddoonsiisay Aamina Dool dhowr meel oo yar bay ahaayeen taa iyada ka jawaabi doonto marka telefishinka ahaan iyo aniga ahaan haddii uu jiro qof aan hal baan ama $1 aan intaan u tagay gacanta iga saaray solo live ka soo galo ha soo istaaga meel ama adiga kula soo xiriiro ha yiraaha Abu Kar oo adigaan ku dhiibay halkaas $1 ama halkaas baan ama lacagta la eg ha yiraaha hadda igu cadaato dambiilan ahay laakiin aniga qof bini aadan ah markaan habar Feenus isla socona xataa habar Feenus gudoomaysa lacagtaana ma ahayn lacag aad u badan ma ahayn dhowr meel baa la tagay iyada jawaabta ay ka bixin doonto laakiin aniga ahaan kan iska hadlo qof bini aadan aan lacag ka qaaday ma jiro soo qof kasta aan kula soo xiriiro soona caday adigaan ku xil saaray arinta dabagal okay waxaad maqashay oo aad daawatay farxiyo kabayare oo iminka ku sugan magaalada London oo magacaaga dhowr jeer sheegtay su'aasha ugu horeysa kabayare ma istaqaan adiga walaashay kabayare waa fanaanad caan ah waa fanaanad qaali ah waxaan u aqaanaa telefishinka iyo YouTube-yada iyo website-yada baraha media ka arkaa laakiin aqoon gaar ah isku leenahay ama telefoon ha noqoto aan ku wada hadalnay ama is aragti ma jirto weligan wax midin dhaxmarin adiga absolute weligan allahan okay shaqana nama dhaxmarin wax kale nama dhaxmarin Abu Kar haday saas tahay iyadoo ku sugan magaalada London adigana aad joogtid hadii magacaaga ay maaragtay u geesiyad ay ku noqotay inay soo dhigto social media oo marar badan aqoon aadan isu lahayn soo lama dhihi karo wax baa jira ama maxay kugu imaan weyso iyadoo London joogto ku dhiiweysay Abu Karow arintan iga jaahil bixi oo maarta ku dhiiweysay yes waa mid loo baahnaa waa mid aan filaayay London bay timid inay telefoon ii soo dirto ama ii soo raadiso ay tiraahdo Abu Karow waxa baan maqlay ama waxaas jiro ii sheeg say wax u jiraan inay tiraahdo taasaan filaayay laakiin may dhicin hadda dhibaato ma lahan annaga cidna ma cambaarayno cidna ma caynayno waxa weyn bulshada Soomaaliyeed baan wax u sheegaynaa dadka qaladka laga dhaadhiciyo ama sida qaldan wax u qaatay baan u macnaynaynaa sida wax u jireen shalayna anaga u kacna Aamina Dool maantana waan u taaganahay ma fahantay
marka annagu waxaan nahay dadkii gargaarka u kacay walaashan u kacay ummadda iyo bulshada gaarsiiyey weligeenna annaga waxna ma qaa'imin waxna isma daba marinin tvgana waa la ogyahay masaajidyo iyo gargaar iyo adduunku ka qayb qaadanaya dadko dhan waa wada ogyihiin ummadda weligeena tv shaksi bini aadan shaqaalaha ka mid ah ama telefishinka akoonkiisa weligeed lacag uguma soo shubin charity iyo qofka markaa meesha fariisanaya ama gargaarka loo sameynayo unbaa lagu shubaya akoonkiisa uu asaga sheegtay annaga weligeen mas-uuliyad ma qaadin marka arrintan ay ku tiri baafo lacag 8,000 oo dollarka Australia ah ayuu hayay oo yiri Abuukar Mahdi ayaan usoo dirayaa ma jirtaa lacag waxay ahaataba $1 ama 8,000 dollar oo kan lacagta Australia ah oo adiga baafo kuu soo diray ama meel kale oo adduunka lagaaga soo diray waa muhiim arrinta berigii xanuunsatay waxaan sameynay wakiilaan sameynay wakiilada aan sameynay London dad baan magacawnay Australian magacawnay Mareykankaan magacawnay Soomaaliyan magacawnay Somaliland magacawnay waxaan magacawnay Salmaan aan isagana magacawnay oo Turki jooga laakiin intiba waxa may soo gudbin oo qof kastaba de sabab baa jirto wax u soo gudbin waayo baafo tan ugu horeysa dan ka jawaabo baafo wuu u kacay wuu dadaalay waxba ururiyay wuuna ii soo sheegay wuxuu yiri lacagta waxaan rabaa inaan inta halka inaan gaarsiiyo markaa kadib aan soo diray lama sugo mid yaa is sugaya bad tan kale anaga qof kasta wakiil baan ka dhiganay dadka aan wakiilka aan ka dhiganay waxay ahayd in la sugo oo la yiraahdo maxay soo direen ama la isweydiiyo nalama weydiin wixii waan ku jirnay shaqadii nooma dhamaanin marka in carqalad qof xanuunsan laga dhex beero oo aan qof xanuunsan aan ku dul hadalno ama aan ku dul doodno taadana wax xumaa aan dhow way xanuunsan tahay in lagu doodo ama lagu hadlo korkeeda ma ahayn laakiin dantan lagu qasbayso dadka saynan qalad nooga fahmin inaan wax u macnayno ma rabin anaga weligay ma soo fariisan ma ogtihiin Facebook iyo baraha meediyaha qof ku badan ma yihi hawar feenu danta ku kaliftay inay soo fariisato marka anaga ma jeclin inaan meelaha soo fariisano oon dadka aan dhahno ilaan shaqooyin kala haynaa dad busy aan nahay waxba idin soo saarnaa idinka idin shaqeynaa riwaayada idin matalnaa waa in maxay ahayd wacyigelin baan sameynaa howlo kale telefishinkan ka shaqeynaa waqti uma haynaba waxaan laakiin dantaan nagu kaliftay inaan soo fariisano calaa ay taxaal soola baafo wixii loo idmay iyo wuxuu ururiyay caddeyn bay leedahay wuxuu soo qaaday waa caddeyn isagana wuu soo geliyaa live-ka galabtuu soo geli doonaa wixii uu hayayna wuu caddeyn doonaa taasaa ka jawaabaya okay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka Abuukar adoo mahadsan haddii aad ii amartid oo isla markaana dadkana daawanaya qofku ahaadaba adduunka meeshuu ka joogo oo la yiraahdo haddii $1 ama $0.5 aamina dhool ku socotay Abuukar Mahdi ama gacanta aad ka saartay London adduunka meeshay ahaataba ay jirto nala soo xiriir meeshay joogaan aan ugu tagno caddeyn ay la yimaadaan arrintaas ma qosha diyaar iyo nus laakiin waxa la rabaa diyaar iyo nus kaliya maaha waxa la rabaa qofka aniga qof bini aadan qof kasta waxa dhici karta inuu yiraahdo waxa baan u dhiibay waxa saajiro qofku waa inuu caddeyn keenaa adduunka Yurub baan joognaa akoon bangigaas aan ku diray ama lacagtaas aan gacanta ka saaray Yurub waad ogtahay in lacagta intaas ama qofka lacagta gacanta la isaga saareen waa ogtahay wax caddeyn ah haddii lagu soo helo $1 xataa Allah ka dhigay xataa qof been sheegay ma aaminsani iska daa qof kale run sheegay qof been sheegay xataa inuu meel soo joogsado oo yiraahdo Abuukar Mahdi lacagta intaas gacanta ka saaray xataa ma aaminsani in la heli doono waad markii doontaa soo okay ugu dambeyntii waxaan rabaa Abuukarow anigu warbaahinta waqti dheer ayaan ku jiray arrintan iskama dhicin runta hadii loo hadlo waayo qof intuu meel soo fadhiisto qof kale wax ku eedayna ma jiro video ani waa soo geliyay adna fursadaan ku siiyay maamada fursadaan siiyay gabdhaha kale fursadaan siiyay arrintan lacagba amay ka weyn tahay wax kala jiraan misdhihi kartaa adoo ma aragtay noo sheegay haday wax kala jiraan anaga aan ogeyn dad daawadayaasha aan ogeyn bay arrimaha ma rabo inaan galo aniga ma rabo inaan galo qofka horta bini aadanka waxa fiican haddii aad wax ka tabanayso dhowr goor bay afka ku dhufatay kaba yara walaashii kaba yara universal abuuk wixii yaan isku dhex darin waxyaabahan haddii universal ay wax ka tabanaysa kaba yara ama wax hore ugu dhex mareen aniga ma ogi ilaahay ugu og ani ma ogi universal haddii wax kala dhexeeyaan anaa dhexgalay oo oranay universal maxaa khalad gabadhan maxaa jira kaba yar hay tiraahdo aniga waxa baa la iga galay ama dambigaas ilaa qofka iska qabsanayo wax caddeyn la'aan ah ilaa caddeyn la soo bandhiga ma jiro ilaa hadda waa dad iska qabsado marka hadday wax jiraan anaaba dhexgalay ha noo sheegto ha tiraahdo waxaasaa jiro hadday tahay Abuukar Mahdi yaa wax qaadayna waa aniga hadda hadalka hore kugu dhameeyo hal igu soo cadeeyo
tan kale raba inaan ka jawaabo waxa weeyaan wakiilada Salmaan waxaan rabaa aan ku xil saaray inaad soo geliso waad taqaanaa waa dad meediyaha afreen ku tihiin baafa inaad soo gelisaan ka codsanayaa deeq darajo inaad soo gelisaan ka codsanayaa Somaliland iyo Soomaaliya hadaan kaaga jawaabana labadooda wakiilo waan ka dhigay laakiin way u suuragali weeyeen maxaa u suuragali weeyeen way ugu soo celiyeen waxay yiraahdeen dukaan inta la tago meeshan lacag lama qaado oo wax lama ururiyo sidiinoo kale akoona lacag lagu soo shubana ma jiraan meeshan laakiin waxaan isticmaalnaa telefoon lacag lagu soo tuurayo AVC taana annaga in ay naga soo gaarta ama hadhow ilaa cadeyn ma laha taasi marka ayaga iska diido waxay yiraahdeen waxa sana gelin Abu Karo telefoonkeena private ka ah ma kolka qof kasta $5 $10 $10 ku soo diro annagana biilal kale lagu soo diro wixii asdex galay marka mas'uuliyadaas ma qaadi karnaa naga daa waana ka daayay maxamed Caabi iyo Cabdullaahi xirto Soomaaliya iyo Somaliland kala joogo waan ka daayay Salmaan asaga ka soo gelin doonta kulay asagana wuxuu yiri arday baa jirto yiri dad masaakiina Turkiga dad wax laga qaadi karo ma joogaan marka laakiin waa u ololeynayaa sida fanaaniinta ugu ololeeyaan fiir hadalka wanaagsan isaga xitaa waa ajiib hadalka wanaagsan waa sadaqad hadalka wanaagsan xitaa waa sadaqad fanaaniinta way u kaceen hadayna lacag fanaan muxuu haystaa malaha way u kaceen laakiin wax bixinta waxa ka wanaagsan hadalka way u kaceen way arkaysaa Nimco Yaasiin Nuur Daalac Fiska Faynuus Xuseen Shire ma soo koobi karo intaan ilooba raali ahaada waa loo wada kacay fanaaniintii oo dhan way qeyla dhaamiyeen iyo reer UK waxaan leeyahay raali noqda hadii la idinku gafay oo lidin yiri fanaaniinta UK waxba ma aadan qaban indhaha naga dadateen waxba ma aadan sameyn hadii la yiri raali ahaada ana idin leh fanaaniinta UK wax qabateen waad kacdeen waad dadaasheen waad dhimateen isbitaalka la taagneedeen meel kasta aad ku balamiyaad iman jirteen wax weyn baad qabateen fanaaniinta reer UK shicibka reer UK lacagaha abkoonkeeda Aamina Dool ee gaarka u ah lacag badan ku soo shubteen annaga cadeynteeda ma hayna Aamina Dool iyada haysto waxeeda akoonkeeda meel kasta ku soo qornay shacabka reer UK maanta qatar nagala joogto wax cadaan ay u keentay iyo wax akoon ay ku shubtaba labada nooc cadeyn doonta marka reer UK waa dadaasheen raali ahaada idinkana waxaan kale oo raali gelinayaa telefishinka oo la aflagaadeeyay telefishinka waxaan leeyahay Universal raali ahaada ana keenay ana mas'uuliyadan qaaday ceebta idinka soo gaartay raali ahaada telefishinka solo maxaa kale okay way Abu Kar waa mahadsan tahay marka Abu Kar hadda waxaad leedahay shilin aamino ku socda gacan hal igu dhiibo akaan hal lagu soo shubo xawaaraha lagu soo diro jidka lagu siiyo ma jirto ayaad ku adkaysatay taas ayaan shacabku ugu direynaa soo hadii lagu soo helana taa abaalkayga hal ay mariyo hal baan ama $1 di gacanta laga saaray hadii akoon lagu soo shubay hadii si kale aan u qaaday taa ma jirto cadeynteeda hal ay soo hordhigo ما شاء الله dambiilan ahay khaa'in hadii taa lagu helo shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay walaalayaal idinka wax kala waxba sheer gareenin ama qofka aadan xukumin walaalayaal dadka hubsada qofka cambaaraynaya ama qofka wariyaha ama qofka meel soo ifriisanayo qofka hala xiriiro ha weydiiyo wax u jiraan qofka iska cambaaraynay waa ma santa Abu Kar aad ayaad ma santa ma sha Allah